Tani waa gabadha badbaadisay badda Soomaaliya. Ma jeceshahay daawada inaad wax ka ogaato gabadha badbaadisay badda Soomaaliya? Gabadhani Muna waa qofkii lahaa hindisaha iyo maskaxda in maxkamad la geeyo dacwada badda oo ay Kenya qaadan rabtay, waxayna ka farxisay malaayiin Soomaali oo ku nool dunida daafaheeda oo idil, iyadoo ku badbaadisay aqoonteeda. Muno waxaan ka hadli doonaa taariikhdeeda waxbarasho iyo sidoo kale hay'adaha caalamiga ay la soo shaqeysay. Haddaba sooyaalka kiiska wuxuu ina tusayaa in gabadha Soomaalida ah ee Muna Maxamed Al-Sharmaani ay tahay haliyey u qalanta in la siiyo abaalmarinta kiiska, loogana mahadceliyo. Muna Al-Sharmaani waa gabar Soomaaliyeed oo heer sare ka gaartay qanuunka caalamiga iyo dhaqaalaha. Inkastoo maamulka farmaajo uu shaqada ka diray, oo haddana waxay ahayd qofkii lahaa maskaxda iyo hindisaha in kiiska baddaba. Muna Al-Sharmaani waa gabar Soomaaliyeed oo heer sare ka gaartay qanuunka caalamiga iyo dhaqaalaha. Inkastoo maamulka farmaajo uu shaqada ka diray, haddana waxay ahayd qofkii lahaa maskaxda iyo hindisaha in kiiska badda, gaar ahaan dhulka Kenya muranka gelisay ee xadka in la geeyo maxkamadda Hague oo weliba ay keento qareen caalami ah. Muna Al-Sharmaani ayaa loo aqoonsaday shaqsiga leh abaalka iyo mudnaanta guusha kiiska badda. Haddaba waa tuma haliyeyga kiiska badda ee Muna Al-Sharmaani. Muna Al-Sharmaani waxay PhD-da iyo masterka ka haysataa xiriirka caalamiga ee dhaqaalaha, iyadoo wax ka dhamaysay jaamacadaha The Johns Hopkins sanadkii 2000. Waxay sidoo kale masterka qanuunka ka dhamaysay gaar ahaan maalgelinta caalamiga ah ee jaamacadda Harvard Law School. Isla takhasuska qanuunka ayay ka diyaarisay jaamacadda Qaahira, gaar ahaan kulliyadda qanuunka intii u dhaxaysay 1985 ilaa 89. Muna Al-Sharmaani waxay shaqeynaysay in ka badan 20 sano iyadoo ku jirtay casharadii ay wax ka baratay oo ku saabsanaa xiriirada caalamiga ah, culumta badaha iyo sidoo kale sharci yaqaanada. Sidoo kale waxay kaaliye sare ka ahayd Weil Gotshal Manges LLP oo ah hay'ad 90 sano shaqeysa oo abuukaatayaal badan leh. Waxay kaloo la soo shaqeysay King and Spalding oo isla qanuunka ah. Muna oo afaf badan ku hadasha waxa wax laga weydiiyaa bangiyada, dhaqaalaha islaamiga ah, hantida gaarka loo leeyahay iyo arrimo kale. Al-Sharmaani waxay hore u soo noqotay xagga qanuunka ee wakiilka joogtada ee Soomaaliya u fadhiya Qaramada Midoobay ee New York. Gabadhan Soomaalida ah ee Muna, sida aan soo sheegnay, waxay ahayd qofkii lahaa hindisaha iyo maskaxda in la geeyo dacwadda ka dhan ah Kenya, iyadoo aragtay damaca in goobtaasi ay Nairobi baaris ka wado shirkado heshiis kula gashay, isna siisay oo weliba ay Hague u gudbi doonto in dhulka ay leedahay. Muna ma aamusin oo tallaabo ayay qaaday, iyada oo ka shaqeysa hay'adaha badaha ee UN-ka iyo UNCLOS. ayay madaxii xilligaas sida wasiirkii arrimaha dibadda Fawziya Xaaji ee dalka Soomaaliya iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kula kulantay New York, lana wadaagtay xog ahayd in Kenya ay wado qorshe ay ku qaadanayso badda. Fawziya oo waqtigaas tagtay waddanka Mareykanka, waxaa booqasho hoteelkii ay Fawziya deganeed ugu yimid Muna Sharma oo ay qaraabo dhow ay ahaayeen, iyadoo markaasi soo booqatay oo weliba family ay aad isugu fiicnaayeen. Maama Fawziya waxay weydiisay Sharma, "Eedda maxaad qabataa?" ayay ku tiri. Waxay dhahday, waxay igu tiri, "Qoladaas ayaan la shaqeeyaa UNCLOS-ka, hay'addan UN-ta ee badaha. Ka waran?" ayaan ku iri, "Baddii Soomaaliya." Waxay igu tiri, "Baddii Soomaaliya eedo waa la haystaa." oo waxaan ku iri, "Yaa haysta?" 3 dal ayay ii sheegtay oo ay ka mid yihiin Yaban, Seychelles iyo Kenya. Waxaan ku iri, "Maxaan ka qaban karnaa?" Waxay tiri, "Waan aqriyay application Kenya soo qortay ayaa jira oo 14 February la eegi doono. Haddii la eego oo aan laga hor imaanin application-kaas, waa uu soconayaa, baddii sidaas ayay ku tagaysaa." Aad ay ula sheekaysatay UNCLOS-ka ayay i geysay. Sidii ay iigu sheegtay ayay wax kasta noqdeen. Xasan Sheekh ayaan u imid ayay tiri Maama Fawziya. Madaxweynihii sidaas ayaa jirta ayaan ku iri. Wasiirkii hore arrimaha dibadda Fawziya Xaaji Aadan ayaa hadalkaas u sheegaysa madaxweynihii Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu si dhab ah u qaatay hadalkii Muna Al-Sharmaani, waxa uuna bilaabay wacyigelintii shacabka, isagoo Muna ka dhigtay la taliyaha madaxweynaha. Waxayna qayb ka noqotay wadahadaladii arrimaha badda markii uu dacwada geeyay International Court of Justice ee ICJ ee Hague. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, Muna waxa uu ka dhigay wakiilka Soomaaliya ee dacwada badda. Muna waxay horseeday inay keento qareen caalami ah oo u dooda badda Soomaaliya. Waxaan leenahay qof kasta oo Soomaali ah
walaasheen muno ha u duceeyo ayaa leenahay xaq kasta oo ay jeclaayeen ama ay filayeen ummadda Soomaaliyeed sidii la rabay ay u soo dhicisay sidoo kale waxaan leenahay xasan sheekh maxamuud maama Fawsiya Muna way ku mahadsan yihiin dadaalkii dheeraa ay badda Soomaaliya u soo galeen sidoo kale waxaan halkan ka marnayn madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo halkiisii ka sii waday dadaalkii qof kasta oo Soomaali ah guusha laba kala lahan waa mid ummadda Soomaaliyeed u soo waday hooyatay madaxduna ay ka ahaayeen adeegayaal taas ayaa muhiim ah in dadku ay ka dhaadhacdo markasta